tababarkani uu soo qabanqaabiyey macadka doorashooyinka iyo hanaqaadka dimuqraadiyadda Afrika ee loo soo gaabiya IZA ayaa lagu baranayay ka qayb qaadashada geedi socodka arrimaha doorashooyinka iyo ka hortagga heebsooca dadka laga tiri badan yahay ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay tababarka mas'uuliyiin ka socday gobolka Banaadir bulsho ka kala socotay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka tababarka inta uu socday ayaa lagu qaadanayay cashiro la xiriiray ka qayb qaadashada siyaasadda dalka iyo si bulshadu ay si siman uga qayb qaadan lahayd arrimaha doorashooyinka dalka qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka ayaa gabagabadii tababarka ka hadlay waxyaabihii ay tababarka ku qaateen baarlamaanka Soomaaliya la xildhibaan baa ugu jirta lixda xildhibaan runtii waxaan aad iyo aad ugu talina sanadka kan doorashooyinka dhacaya dalka inuu xildhibaano oo ka duwan ama ka tayo badan xildhibaanadii sanadkii hore oo hadda sanadka noo soo dhamaaday inay ka dubnaadaan tayo ahaan wax qabad ahaan iyo nooc kastaba oo ay tahay sababtoo ah seminaarka la qabtin waxa waa aad ugu faraxsanahay oo ma la soo koobi karo dareenkayga maadaama nolosii boqolkii 30 haba ahaata haweenka waxa waay boqolkii 30 nolosii hatta dadaal hadda muujino boqolkii boqol waa gaari karnaa xagga waxa uu gudbaa doorashada xildhibaanada hadda joogo kaalintay ku jirtaan wax muuqdo waa hadda banaadirna waa isnaqaana dad waxa naga rabnaa inaan doorano masiirkeeni ka turjumayo wadanka waxbarasho la keenaa boort studio ma u aragna ilmaheena Masar la aada Suudaan la aada China la aada adduunka meelan la aadin male cunug reer banaadir xildhibaan boort studio u keenay dhif iyo qaliil waay haddoo u keenana dana gaar ahaaneed ku wata mid asa taageersan aniga ay taageersan oday maxamed wiilkiis Xuseen Lensiina war Xuseen waxa ka aqoon badan Caasha ka aqoon badan Axmed ka aqoon badan si ma aniga i taageersan ilmahaas in siyaasiyiintu ay mar walba ka waantoobaan guddoomiyihii hore ee degmada Xamarweyne Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir iyo guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Caamir Shakeeti ayaa tababarka furay ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay wax badan ka fahmaan arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda ayna doortaan shakhsiyaad si dhab ah u matali kara danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxay tahay oo hadda barnaamijkan la soo qabanqaabiyay in odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka doorashooyinka soo socda hadii calafka oo yeelatay inaad ka qayb gashaan ama ergooyinkiisa ay ka mid noqotaan inaad noqotaan dad oo ayagoo og doorashada qaabka uu dhacayo sida loo codeynayo iyo nidaamka uu noqonayo casharadaas halkan ka qaatay inaad ku gashaan maxal laha doorashada waa dareemi kartiin arrimaha doorashooyinka xaaladaha uu maanta marayo maalinta ka dambaysa way ka daran tahay meesha sidoo u talaabsanayo waxaan rabaa inaad noqotaan dad wax fahmi kara ku shaqayn kara mustaqbalka ayatiinka golaha shacabka waa meesha kaliya masiirka loogu gaaro dadka Soomaaliyeed beelaha Banaadiriga waxaan ku leenahay 5 kursi 5teena kursi waa inuu noqdaa 5 kursi wax tar leh wax ku soo kordhin kara beelaha seeti markaaseeti dalkan wax ku soo kordhin kara ka hadli kara mustaqbalka caruurta Soomaaliyeed ka hadli kara horumarkeena ka hadli kara maxaan annaga nahay horta maxaan lagaga baahan yahay maxaa naga maqan Cabduqaadir Fantastic warbaahinta qaranka